بسم الله الرحمن الرحيم macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada adeeg hufan oo idin raali geliya haddaba walaalayaal sidaad shirkadda Dallas Real Estate ba uga barateen waxaa maanta mar kale idin soo gudbinaynaa guri iib ah ku soo dhawaada daawasho wacan waxa aad u filayaa inaad ka heli doontaan runtii gurigani waa guri maasha Allah meel istiraatiiji ah ku yaalo waa filla dhisan si qurux badan u dhisan waa deegaan sidoo kale ganacsi runtii waa fursadaha naadirka ah ee aan badanaa la helin markaa ku dhahay waa deegaan iyo ganacsi waxa ula jeedaa gurigani dhisan qaybna waxaa loogu talagalay in laga dhigo dukaamo iyo ganacsi qaybna waxaa loogu talagalay inaad qoyskaaga degsato ama aad ku noolaato ku soo dhawaada gudaha guriga iyo banaankaba waad aragteen sida aan filayo xaafadda oo ku yaalo gurigani waxa uu ku yaalaa magaalada Muqdisho gaar ahaan waxa uu sii yaalaa degmada Yaaqshiid si gaar ah waxa uu sii yaalaa xaafadda Carafaad laamiga warshadaha waxa uu ka yahay booska labaad sidoo kale isbitaalka Carafaadna aad ayuu ugu dhow yahay waa sugunta boos ama laamiga guriga ka ah booska labaad laamiga waad aragtaan waa meesha caasiga uu hadda maraayo haddii aan ka hadlo cabirka oo ku fadhiyo gurigani waxa uu ku fadhiyaa dhul cabirkiisa uu yahay 20 lagu dhufto 15 ama finti barkuundisho dhinacna waxa uu noqonayaa ama laba dhinac waxa uu noqonayaa 20 mitir labada dhinac kalena waxa uu noqonayaa 15 mitir waa gurigaas aad aragtaan waxaa ka dhisan qaybta deegaanka ah 5 qol oo hal qol oo kamid ah uu yahay master room waa qol musqushiisa ku dhex taalo waa qol weyn oo qolka maasha Allah guriga ugu fiican ah hooyadii aabaha loogu talagalay ama lamaanaha iyo 4 qol oo kale suuli kaleete maasha Allah ay barxadan yarta ah oo baarkinka ah sidoo kale 3 qol oo wadada ku sii jeeda oo iridooda banaanka ee ku jeedo oo loogu talagalay ganacsi waa kana 3 qol waa darbigan kale ee masharaafta leh dhinacan kalena waa deegaankii marka hadii la isku daro waxa uu ka kooban yahay guriga 8 qol 3 qol oo ganacsi ah iyo 5 qol oo deegaan ah dabcan cabirkan ayaa cabir weyn ah saas ayuu gurigan ku noqday 8 qol soo dhawaada walaalayaal faa'iideysan waa u jeedaa meesha uu ku yaala sida qurux badan tahay gurigaas dabaqa ayaa ka soo horjeeda geedaha ku yaala waa aragtaan aan u gudagala xagga dukumentiga gurigani waa nadiif waa dukumentiyadii Maxamed Siyaad Barre wax ka maqan ma laha waa nadiif nootaay alla mid aad jeceshahay ayaad kala wareegi kartaa shirkadda Dallas Real Estate waxay mar walba u taagan tahay inay idin soo gudbiso dhulalka nadiifka ah ee idinka qabtirto baahiyaha aad u qabtaan dhulalka nadiifka ah ee sharcigooda fiican yahay sharciga ayaa number 1 ah hanti maguurta haddii aad gadanayso dhul uu yahay guri uu yahay waa in dukumenti nadiif uu lahaado haddii kale gurigaaga qalqiil ayaa ka galaya hantidaadana halis ayay ku jirtaa aanu umaada xagga qiimaha gurigani waxaa lagu rabaa $120,000 Mareykanka ah oo isku dhamaad ah macal dalaal runtii qiimahaasi ma darna maxaa yeelay waa guri laamiga meeshaas aan idin sheegay ka ah waa booska labaad laamiga inuu saaran yahay waxa uma dhaanto laba tilaabo yar kadib waxa laamiga waa taagan tahay waa xaafad istiraatiiji ah
wadadii warshadaha haddii aad ratid ex control ilaa soona afgooye degdeg ku aadi kartid magaalada kale si fiican u aadi kartid jidka oo laamiga warshadaha waxaa la qorsheynayaa in la dhiso sida aan xogta ku helnay marka soo dhawaada waa meel istiraatiiji ah waa meel deegaan iyo ganacsi ah qolalka oo kirada ah lacag fiican ayaa kasoo xaroonaysa hadda waa la degan yahay ganacsi ayaa ku jira soo dhawaada haddii aan si kooban usoo dul maro waa xaafadda Carafaad 2015 waxaa ka dhigay 8 qol 3 qol ganacsi tahay 5 qol ee deegaan tahay qiimaha 120 dukumiintiga Maxamed Siyaad Barre walaalayaal waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha aad ku xiran tihiin shirkadda Real Estate ugu dambeyn kanaalka subscribe noo saara gambalaalkana furta idinkoo mahadsan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh